dable xoogga dalka Cabdi Waayeel Macalin Aadan Keenadiid iyo sidoo kale dable xoogga dalka Dayax Nuur Cabdi Aadan oo loo haysto dilka Allah u naxariistay Zakariya iyo Zawda oo wada dhashay oo lagu dilay labadii bishan isgoyska dabka ayaa ka soo muuqday maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida muuqaal ay duubtay kaamirada CC ayaa muujiyay habdhaqanka eedeysanaha oo shacabkii loogu talagalay ilaalintoodii ku xadgudbaya xeer ilaaliye Maxamed Cabdullaahi Khaliif ayaa maxkamadda la wadaagay ficilada iyo dhaqanka askariga oo ay duubtay kaamirada asoo yaqaano qaabkii loo isticmaalo hubka asigoo yaqaano discipliinka ciidanka isagoo yaqaano in goobta ay tahay goob dadweyne goob shacab aan loogu talgalin in xabad laga rido ayuu wuxuu isticmaalay xabadii koobaad oo ay ku dhacday labada marxuum oo aysan filaynin inuu dili doono sidoo kale xabadii labaad ayuu hadan dhankan kale u ridaya wili taagtaag ayuu ku jiraa wadihii bajaata oo ay saarnaayeen labada marxuum ee wada dhashay ayay maxkamadda weydiisay ogaantiisa degmada waa bari ka imaanay waxa uu soconay maqaayad la like and share meesha waxaan oo qofsaday jaamira galnay faant marka anaga jaamki ku jirno dhagax meesha yaalo agaariisa askula sineen faant marka xabadaha dhaceen marka xabadii markay dhaceen dadkii aan aawaday waxa dareemay gadaasheeda inay nash markaas mootadii waxay leedahay haad dhaxa ka fiiriyay wiilkii waayay gabadhiin saasay u dhacday faant marka saasay u dhacday markaas awaaqeeliyay ka bacdi mootadii wiil igu horeeyay waxay sheegeen in mootada aan wada dhaawac saas dadada wangdaali furwada wala carray waxa isbitaal ku yaala Xaaji Baasto inta ay socotay dhageysiga dacwadan ayaa sidoo kale waxa marqaatiyaasha maxkamadda ay wax ka weydiisay kamid ahaa kiiskan askari la socday eedeysanayaasha horta xabadda kullee horta aniga horta uma jeedin laakiin waxoogaadii shaka igelisanay daacad naftiida ahaan CID-da qaybteeda sheebaarka cilmiyeysan ayaa iyadana waxa ay ka jawaabtay qoryaha haddii ay ka dhaceen rasaasta ay sababsadeen labada marxuun leebka iyo bahalkaas soo tuuraya ejectorka la yiraahdo iyo extractor bahal la yiraahdo iyo calaamad kale oo kan la yiraahdo voltface-ka waxyaabahaas oo dhan calaamadahay ku sameynayaan calaamadahaas marka yani uu qoriga ku sameeyay iyo calaamadihii kuwii crime scene-ka laga keenay calaamadaha ku yaala waa la isu fiirinayaa isbarbardhiga lagu sameynayaa haddii marka sidaas marka waxaan ku helaynaa cadaynta oo buuxda in maaragtay xabaduhu qorigan ka dhaceen gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi xeeraliye ku-xigeenka maxkamadda ayaa waxa uu ka dalbaday in lagu xukumo ciqaab u dhiganta dambiyadii lagu soo eedeeyay oo ah dil toogasho waxaan maxkamadda horkeena cadeymo buuxa oo dhameystiran oo cadeynaya qodobka 434 kuwaasoo sugaya dhammaan in uu mas'uul ka yahay dilka labada marxuum si bareerana u dilay una isticmaalay xabad isagoo maraya malaayiin shacab dhaxdooda oo xabadda isticmaalay waxaan codsanaynaa maxkamaddu in ay eedeysane Cabdi Waayeel ku xukunto yani ciqaabta uu mudan yahay oo ah dil si ay ugu tusaale qaataan askarta kale ee mataqaanaa suuragal ay tahay inay shacabka dhaxdiisa ku isticmaalaan xabad halka eedeysana labaad aan codsanayno eedaan u soo jeedinay mataqaanaa xeerka nabadgelyada guud inay maxkamadda ku ciqaabtaan codsanayna isagana ugu dambeyntii fadhiga maxkamadda ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute dhageysiga garmaqalka dhanka ka ah eedeysanayaal Cabdi Waayeel Macalin Aadan Cilmi iyo Dayax Nuur Cabdi Aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso fadhigu waa noo xiran yahay Cabdi Naasir Socdaal Bilan Radio